بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa Sahan Academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha wali waxaan ku gudi jirnaa course-ka inuu ugu magac darnay Essentials of Computer Applications oo markaasi ah course aynu ku baranayno barnaamijyada aasaasiga ah ee la xiriira computerka waxaan maraynaa qaybta saddexaad oo markaasi ah MS Word gaar ahaan version-kan isticmaalayna waa 2010 way ama 2010 waxaan maraynaa lesson 4 oo markaasi ah casharka afraad casharkana waxaynu kaga hadlaynaa wax la yiraahdo header and footer wax la yiraahdo ayaan casharkan uga hadlaynaa waxa ay yihiin iyo sidoo kale sida loo sameeyo ayaan casharkan ku baran doonaa hadii la idmo waxaan filayaa markaas saddexdii cashar ee markaasi MS Word-ka ku saabsanaa ee aynu horay u soo daawanay in si fiican loo fahmay hadii ay jiraan su'aalo ku saabsan saddexdaas casharna waad ina soo weydiin kartaa WhatsApp nagala soo hadli kartaa Telegram ama email ay inoo soo diri kartaa adigoo email-kaaga ama fariintaada cinwaan uga dhigayo qaybta aad rabto inaad su'aalo inaga weydiiso sidoo kale waxaan filayaa talooyinka aan ka jeediyay muuqaaladii hore ee markaasi aynu soo daawanay in markaasi wax badan laga qaatay ama hadda kadib la qaadan doono taa ku saabsanayd in cilmiga waxyaabo badan oo ku saabsan la raadiyo waayo dhabaha kaliya lagu guuleysa waxay tahay in wax badan la raadiyo wax badan la akhriyo casharadan kaliya ay ku noqdaan furo kaliya ay ku noqdaan anigu gudaha ugal marka course-ku waa MS Word 2010 lesson 4 oo markaasi ah casharka afraadna waxaynu kaga hadlaynaa ama aynu kaga baran doonaa ama aynu ku baran doonaa header and footer ayaan markaasi ku baran doonaa hagaag imika waxaan joognaa shaashada koowaad ee computerkeena waxaan markaasi soo furanaynaa filekeena oo markaasi Word-ka aynu soo abuuranay ee markaasi aynu ku soo qornay Word practical soo marka aynu soo furno double click markaan dhahno durbaba waxa inoo furmaayo filekii ama documentigii oo markaasi uu soo muuqanayo hawlihii ugu dambeeyay ee aynu soo qabanay hadii la xusuusto casharka u dambeeyay waxaynu kaga soo hadalnay sida documentiga loogu daro sawir sida loo abuuro ama loogu daro jadwal sidoo kale shapes sida markaasi loogu daro ayaan markaasi kaga soo hadalay casharkii u dambeeyay soo marka waxaan rabnaa qaybtan in documentigan aynu u sameeyno wax la yiraahdo header and footer header wax la yiraahdo qoraalka ka soo muuqanaya page-ka qaybtiisii sare waana sida automatic ah page walbana uga soo muuqanaya ayaa waxa lagu magacaabaa header footerna wax la yiraahdo qoraalka ka soo muuqanaya qaybta hoose ee page-ka ama documentiga kaasoo page waliba si automatic isagoo aan la qorin ka soo muuqanaya ayaa markaasi lagu magacaaba so hadda waxaan rabnaa in aynu ku soo darno oo wax la yiraahdo inaan waxa u sameeyno wax la yiraahdo footer iyo header marka hore waxaan ku hormaraynaa header soo marka si aynu header ugu darno ama qoraal oo automatic page walba ugu muuqanayo si aan ugu darno waxaan adeegsan karnaa laba qaab habka koowaad wuxuu yahay in meesha ugu sareysa documentigan aan double click aan dhahno durbaba waxa waaye waxaan arkaynaa qoraalkii in markaasi qaabkiisii uu markaasi iftiinkiisii u yaraado oo meel kale tig ay ka muuqato meeshana waxa ku qoran header habkan koowaad markaasi waa loo geliyaa habka labaad wuxuu yahay maadaama aad rabto inaad wax ku soo darto waxaad tagaysaa oo documentiga inaad wax ku darto aad rabto waxaad tagaysaa meeshaas ay ku qoran tahay insert kadibna waxaad dooranaysaa header ayaad dooranaysaa header markaad doorato kadib waxa markaasi ku soo boodaysa ama ku soo baxayso qaabka markaasi aad wax ugu daraysid ma waxaad rabtaa blank ahaan mise saddex shay ayaad rabtaa inaad wax ugu darto ma waxaad rabtaa in line uu ka dambeeyo qaabka adiga aad rabtaa marka ugu daraysaa so tusaale waxaan leeyahay midkan line-ka oo kale aan ku daro waa kaas hadda meeshaas oo markaasi ah type the document title-ka meeshan ayaad wax ku qoraysaa tusaale waxaan leeyahay tijaabada waxaan leeyahay tijaabada casharka oo kale ayaan leeyahay title-ka tusaale hadii aan tago title-kane waxaan ku qoraa tusaale kii hadda waaye title-ka hadda inoo qoran waa kaasa hadda page waliba uu ka soo muuqana hadda page-kan waa page-ka koowaad hadii aan tagno meesha oo markaasi page-ka uu ka soo muuqanayo page 2 oo kale hadii aan tagno waa kana page 2 hadda waan joognaa page 2 ayaan joognaa page 2 na durbaba waxa ka soo muuqanayo wax la yiraahdo tijaabada casharka ayaa markaa ka soo muuqanayo soo marka si aan uga saarno isaga ayaan leenahay double click kadibna delete ayaan taabanaynaa ama backspace kadibna waxaan kasii dooranaynaa meeshan ay ku qoran tahay close header and footer so hadda hadii aynu tagno qaybta hore waxaan arkaynaa in markaasi uu ka maqan yahay header-ka ama wixii aan soo gelinay uu ka maqan yahay sidoo kale waxaan awood u leenahay in aan sawir aan ka dhigno header-ka si aan uga dhigno marka sawirkan tusaale sawirkan oo markaasi Sahan Academy Home of Knowledge and Skills kan ay qoran yihiin loogada ayaan rabnaa inaan header uga dhigno isaga ayaan koobiyeyneynaa markaan koobiyeyno kadib meeshaas sare ayaan double click leenahay kadib waxaan leenahay paste ayaan leenahay paste markaan dhahno
kadib maadaama balac weyn uu ku fadhiyo waan yareynaynaa markaan yareyna kadib waxaan leenahay centerka ayaan geynaynaa maadaama hadda marka wuxuu yaalaa centerka ayuu yaalaa designka ayaan tagaa kadibna close header and footer ayaan leeyahay hadda sawirkan page waliba uu ku jiraa hadda waxaan joognaa pageka koowaad pageka labaad oo kale haddii aan tagno yani meesha hore 1 ka ah marka 2 ay noqoto ayaan pageka labaad joognaa way so marka haddii aan tagno pageka labaad waxaan arkaynaa sawirkii oo markaasi in si automatic ah uu markaasi uga jiro si aad uga saartana waxaad leedahay isaga double click leh kadibna waxa waaye delete garay after that waxaad tagaysaa meeshaas ama meel banaan ayaad markaasi click ka siinaysaa so qaabkaas waa markaasi loo soo geliya waa headerka way footerkana wuu la mid yahay habka ugu fudud wuxuu yahay in qaybta ugu hooseysa documentigaaga aad double click aad dhahdo kadibna waxa aad rabto aad ku qorto tusaale waxa qoray oo kale waxa qoray teacher Said waxaan leeyahay tusaale Said Yusuf Mohammed hadda wuxuu yaalaa gees ayuu yaalaa control e ayaan leeyahay control markaasi centerka inuu tago so qaabka waa loo soo geliyaa kadib waxaan leeyahay close header and footer so marka waxaan arkaa pagekan oo pageka koowaad ah wuu ku jira haddii aad fiirsato pageka koowaad wuu ku jira haddii aan tagno pageka labaad qaybtiisii ugu dambeysana waxaan ka arkaynaa markaasi waxaa qoray Said Yusuf in markaasi ay taalo so hadda aan delete gareeyo hadda tusaale aan delete gareeyo waxaan leeyahay backspace waan tiraa kadibna waxaan leeyahay close header and footer ayaan leeyahay markaan dhaho kadib waxaan rabaa qaabka kale inaan usoo geliyo sideen usoo gelinaa waxaan tagaa maadaama aan rabo inaan wax soo geliyo insert ayaan tagaa kadibna waxaan dooranaa footer ayaan dooranaa footer waa qaybta hoose waay so marka kii hadda oo kale waay qaabkeed u rabtaa waxaa sidoo kale xusid mudan in page numberka uu kuugu darayo pageka aad joogtid oo horey kaaga dari karo kan marka kan ayaan dooranaa tusaale kan ayaan dooranaa waxaan leeyahay tusaale line wuu ku daray waxaan leeyahay tusaale inta ayaan ku qoraa waxa qoray Said Yusuf Mohammed kadibna waxaan leeyahay maxay meel banaan ayaan click siinaa so inta wuu yaalaa intana page numberkii pageka koowaad inaan joogno ayuu markaasi noo cadeynaa haddaanu sii socono waxaan arkaynaa pageka labaadna inuu ku jiro Said Yusuf Mohammed pageka labaad inuu joogo ayaan markaasi arkaynaa si markaasi page kaliya aad ugu soo darto waxaad control a oo kale aan dhahno ka aan delete gareyno ka meel banaan aan tagno page markaasi page number si aad ugu soo dartana si aad wax ugu soo darto waxaad tagaysaa insertiga kadibna page numberka ayaad dooranaysaa meesha aad rabto top ma rabtaa ama qaybta hore ma qaybta sare ma rabtaa ma waxaad rabtaa pageka qaybta hoose buttonka way tusaale aniga waxaan dooranaa buttonka oo kale qaybta hoose halkaas waad dooranaysaa kadibna close header and footer page numberka page waliba marka wuxuu ku qoray qaybta dhexe waxaad samayn kartaa markaasi inaad farta aad waaweyn aad ka dhigto waad awoodaa sidoo kale fontiga inaad u bedeshane waad awoodaa sidoo kale highlight inaad samaysane waad awoodaa oo waa samayn kartaa waa page numberka way marka qaabkaas ayaa markaasi loo sameeyaa wax la yiraahdo page number waxaan filayaa markii cashirkan wax badan laga fahmay intaynu ku soo gabagabeynayna cashirkeena intaynu ku kulmi doono cashirka xigana waxaan idin kaga tagaynaa sida ay nabadino. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.